Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. run ahaantii dhibaato weyn ayaa ka dhacday magaaladan ku noolahay. 3 qof aa lagu dilay wadadana ujeedid waxaana ka soo wareegatay muddo 3 bilood ah. saasay tahay dad badan waxay ku xamanayeen dadkan waxa dilay inay raaxama iyo balaayo yihiin iyo illuminati macnaha ku sheedaamada caabudo. saasay tahayna dadkan waxay iska dhaadhiceen nin dilaa inuu jiro xilliyada roobkuna soo baxay jaraa'idada meel walbana waa lagu qoray. saasay tahay waxaa ka soo qaada waxaan inay yihiin malaawaal waa iska daayay. saasay tahay hal habeen wadadii aan soo maray cabsi ma dhahda wadadan aad looga cabsanayay. horteydana waxaa ku qornaa warning ay isticmaalin telefoon wadadan agtiisa anigana raadiyaa oo shitabo ilaa markiis roob baa soo daay anigana waxaa iri idinkama cabsanaa maandhacayaasha tiin cune maxay isu moodeen bis gaariga xoog maxaa ka gala oo waday nin waxa iga soo horbaxay madow badan oo wadada taagan aniga naxdin gaarigan bareega qabtay. ninkii markii dambe intuu igu soo dorqay wuxuu igu yiri anigana daaqada dejistay oraa maalantahay maandhacayo xunka inay wada tahay soo ma ogid meeshan oo highway itaaya ku dili karo. waraa waxaas ka bax waxaa rabaa wadadaas inay geysan fahmaysaa meel afaray ku fiiqay 20 kiiloomitir ay jirta meeshaas. waxaan ku iri meesha maxaa jiro wariyaha meesha ay hadii kal meeshan waa ku baaba'eena waa lagu dilaa meeshan waa halis dhaqso hadalka badan iga jooji. aniga hadalkiisa serious ah u qaatay sababtoo ah wuxuu ka hadlaayo runa u mooday isla markii waa cabsaday ninkan ilkiisa aad u jajabnaayeen aniga dhan shaki ay dilay. aniga waxaan ku iri saaxiibow magaalada u socdaa asagana wuxuu yiri meeshan la ina iga wado baa doonaya dhibaato kale ma wata saaxiibay faan waxay timaha qaxwaale bis isla markii gaarigii aan waday. saasay tahay ninkan su'aalaha weydiinay iga mujaabaan way iga aamusnaa ada cabaar kadib wuxuu bilaabay madaxayga inuu taabto reeman dhacaysata gabdhe meeshu steeringku madaxa igu dhufanaa anigana hanaaq ma dhahday gaarigii bareeg qabtay isla markii gaariga uu istaagay anigana inta ku anaqaxan orman dhaco dhalam xismood gaariga intaan ka soo orday anaan wacay isla markaas haddana waan ku soo laabtay asagana big uu dhahay meel uu aad kala sheeg macnaha nin dilaayo ahaa. aniga wax walba booliiska la wadaagay meeshuu ninkan igu soo weerarna meeshuu shilka ka dhici jiro ahaa oo 3 qof hore loogu dilay. saasay tahay gaarigana meel fiican istaajiyay haddaan istaajin lahayn saacadan shil weyn aan gal lahaa. booliiskana way imaadeen su'aalo i weydiiyeen ninkan maxaa idinka dhaxay waxaan ku iri ma aqaana waa dilaaman dhacan xunka waxaa lagu xukumay 5 sano xariga. saasay tahay ii hanjab wuxuu igu yiri haddaa soo baxo cirka roobada ku meela galleed sii qodo ilaa maantadan ma ilaawin ninkaas dhibaatada ii geystay mar walba soo xasuustaa. saasay tahay maalintaas gaariga haddaan bareeg qaban lahayn saacadan iska wadi lahaa buundada intuu ka dhaco shil xun gal lahaa waana dhiman lahaa qisa xanuun badan oo igu dhacday. asxaabi la gasaar hal abuur Soomaali 100 kun gaarsiya Ramadan Kareem love you all in the world. magacaygu waa Aditya waxaana ku noolahay India. saasay tahay 40 sano jira sheekada markii igu dhacaysay 28 sano jiray meel la yiraahdo Amati aan ku noolahay India. saasay tahay gaari iska watay maalimaha kamida baaskeel maxaa ka galay igu soo hormaray ilaa amarkiisa. saasay tahay booliisa markii dambe iga daba imaaday anigana waa iska istaagay sababtoo ah booliis lama doodi kari. waxay igu yiraahdeen hal nin buu ahaa oo askari ah oo soo degay wuxuu igu yiri waryahay maandhacayo ka soo bax gaariga dhaqso oo danka sharciya waryaha laba mootan ku admareen way admareen inta cabaar fikiray number plate koodan siiyay iyo magacyadooda u sheegay isla markiiba waxaa laga baaray kombiyuutarka. ilaa amarkiis maalimaha kamida aniga oo xafiiskayga iska dhex fadhiyo kombiyuutarkayga garaacayo ayaa fariin lama filaan ay soo dhacday. marka fariinta waxaa ku qoran you have interfered in our business
now you have to pay for it. Macnaha shaqadeena soo faragashay tamaandhaco dhalo waa inaad bixisaa lacagta khasaarada noo geysatay. Aniga naxdin ma dhahdaa, isla markiiba waxaa arkay sawirada oo gurigayga meel walba. Anigana waa naxay. Xilligaasba booliiska aaday, arrintan dhan booliiska u sheegay, wax walbana waa tusiyey, sababtoo ah kuwan inay dilaanay waa soo dhigteenba. Ilaa markiis waxay yiraahdeen askarigaana gurigaada ilaalinaya muddo 5 beri ah, laakiin 6 beri qaadatay. Adi 5 beri way iska fiicneed ilaa habeenkii 6aad ma ahane. Habeenka aniga iska jiifo gurigayga waxaa maqla askariga in lagu dhagay. qayladiisa maqla waadan ku soo boodaan anigoo naxsan. Isla markii waxaa iri bal soo fiiro waxa meesha ka dhacay. Askarigii oo lagu dhagay oo qaylinaya waa arka waadaas gura. Aniga naxdin ma dhahdaa, isla markii waan soo orday. Waryaa askariga maxaa ka rabta? Waraadna waan ku dilaya dhooro dhala. Dhiigana ka muuqday. Kan kale wuxuu ku hayay war ninkaan ugu diliniyo ma wala taaday. Midda kale wuxuu yiri shaqadeena dambaa soo faragashan ama sida booliiskana hadda ugu dhameenan ku dhamaynayna. Meeshii marka waxaa yaala qoriga lagu dheeli cricket oo soo qaatay. Anigan manaxa waraay soo dhawaan gab kan waan ku dhuftay. Waraa aqoona igu ka dhimo waan ku dili doonaa. Ninkan kalena oo yara cabsada xabadoo la soo baxay. Anigan gab dhimo wariya aqoonna ma leeyahay. Isla markiina booliiska waa arinta dhan u sheegay. Wariga soo gaara waa la soo weeraray ma nooli. Nimankiina waa wada dhaawacay. Nimankii markaas isbitaal loo soo qaaday. Anigana maxkamadda la soo saaray si nimankaana ugu cadeeyo wax walbo. Anigana waan ku cadeeyay dambigooda. Garsooreena wuxuu ku xukumay dil toogasho ka soo noqosho lahayn. Saasi taa labadan nin waxay ka soo fakadeen booliiska. Mootadii soo qaateen waa kuwii garab marayay oo askariga weydiinaya nimankaas ma aragtay. Ilaa maantadan askariga oo dartii u dhintay fiyoora u geeyay sababtoo ah uu difaacayay. Waana qas xanuun badan oo dhacday. Asxaabi la gasaar waan ku mahadsantiin daawashadiina. Halabuur Soomaaliya hadda ku cusubta ama holac Soomaali subscribe deh. Ramadan Kareem, love you all in the world. God, oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my